waqti madasha arooska sidan looga soo buuxsamay maan ogeyn anigu kolkaan meesha soo gelayay cid badani ma joogin 6 miis baa la fadhiyay anigu kan toddobaad oo barta caruuska iyo caruusada loo goleeyay u dhow ayaan kaligay iska fadhiistay waxa aan ahaa mayd soconaya wadnahayga gariirka ka baxayay wuxuu ruuxayay feedhahayga oo dhan caguhu way ibarareen baabacooyinka dhidid baa hibitiqayay afka waxa ka dhamaatay candhuuftii in aan suuxo ayaan midid kasta ka cabsi qabay cadaadis iyo culays aan ka baqayay inay idilaan ayaa igu yuururay in aan dhinto maan jeclayn dunida waxba kama aan qabsan xoolo igu filan maan dhaqan daaro badanna maan lahayn waxaas oo dhan waxa iiga sii daraa inantii qalbigayga ruqday ee noloshaydu daraadeed u marmarorsantay in aan ka dhinto oo iyada oo aan haa i oo dhan ka dhaqaaqo ma jeclayn maxaase dhacay waxa aan sii xasuustaa caruuskii iyo caruusadii oo kadinka ka soo gelaya waxa aan sii xasuustaa dadkii oo isla sara kacay oo dhammaantood oogsaday waxa aan sii xasuustaa sacab iyo mashxarad waxa aan sii xasuustaa hees ay dumarku qaadayeen inanta soo galbiyay waxa aan sii xasuustaa nin miyuusiga qaylo dheer oo aan ku dhege barjoobay loo tumayay oo ku heesayay labadii hodmee hoy wada galee hooda leh noqdo hibo iyo ducaba inaga hooye waxaan kale oo aan sii xasuustaa caruuskii iyo nagaad oo gacanta is haysta oo dhankii ay fadhiisan lahaayeen oo miiska aan fadhiyay barbarkiisa ahayd u soo socda waxa aan xasuustaa farxadda iyo reereynta nagaad wajigeeda ku qornaa waxa aan xasuustaa lebiska ay gashnayd laabteeda nuurka leh ee aan toobku daboolin ee sidii aan weligay ku ogaa u dhalaalaysa sida habsamida leh ee timaheeda kor loogu dhisay sida ay tallaabada taxadirka leh u soo qaadaysay tabtii aan weligay niyadeyda ku hayn jiray in aan u horgalo ugu dabeecsanaado ugu nabnaado ugu dhinac qoslo ayuu habeenkaas caruusku ku ahaa nagaad anigii buu imatalayay miyuu imatalaya mise wuu idhacay miyuu idhacay mise way iga jeclaatay oo aniga ayay inacday miyay runtii inacday waxa aan xasuustaa iyaga oo igu soo dhawaaday nagaad waxa wajigeeda ku dhajisnaa habeenka qosol aan go'ayn miyay farxad la qoslaysay miyay naxdin la qoslaysay oo madasha xafladda iyo macsharkan isu soo baxay ayay ka qajilaysay ma hubo fursad aan ku sii weydiiyana umaba helin sidii ay u soo qoslaysay ayuunbaa mar qura indhahayagii isku dhaceen mar keli ah ayuunbay qosolkii goysay oo indho muruga leh igu eegtay farxad aan hore igu jirin baa igashay sababta murugada indhaha nagaad ka muuqata ii farxad gelisay bal adba ii sheeg qosol dirqi ah ayaa la doola cadeeyay sidii laba ruux oo sheeko ka dhaxayso oo isu hamuun qaba haddana kala gambanaya ayaanu isugu dhaygagnay caruuskii oo nagaad gacanteeda bidix ka laalaaba ayaa ka war helay sida aanu labadayadu isugu maqannahay indho cadho ka muuqato oo aad u kulul ayuu igu gubay waxaan ugu jawaabay cadhotii la mid ah nagaad waxa ay ka war heshay wejigayagii oo isbedelay waxa ay u jeesatay jacaylkeedii cusbaa oo wax aanan maqlin ku tidhi qosol aad u dheer oo xitaa dadkii soo dhaweynayay qaarkood ay la yaabeen ayay caruusadii iyo caruuskii isku dareen oo intay dhankaygii soo wada eegeen aad isugu sii dhegeen wadnahaygii ayaa garaacii kordhiyey hiinraag badan ayaan ku waashay naqaskii baa dirqi igu noqday indhihii baacaad khafiif ah iga hormaray dadkii oo dhan ayaa hiimse iigu muuqday waxa aan xasuustaa qof dumar ah oo mara cad xidhan oo tafta haysata oo dhankayga u soo ordaysa waxa aan xasuustaa iyada oo idul timid oo dibnaha dhaqaajinaysa waxa aan xasuustaa dhowr qof oo kale oo ku soo biiray magacayga wax u eg oo afkeeda ka soo baxayay ayaan xasuustaa ilmadii indhaheeda ka soo daadanaysa oo dhowr dhibcood oo ka mid ah ishayda midig toos ugu dhacayeen ayaan sii xasuustaa talow ma adiga ayay
ku ilmeynaysaa ma arooskeeda oo aad ka qashqashi doonto ayay ka murugoonaysaa oo ay la ilmeynaysaa aniga oo faalooyin noocaas ah isku haya ayaa iigu dambaysay dabadeed waxaa igu soo rogmaday daah madow fogfogtii wadnaha ee aan maqlayay neefsashadeydii ii baxaysay iyo micnihii nolosha oo dhan ayaa mar qura iga wada huleelay waxaa i helay sababta aan uga tegay arooska iyo faalada reer adduun arrimahaas ka dhiibteen mooyi adiga daawadaha ah baa iiga warroon waxaase aan ku siinayaa wixii i dhibay ee dhafoorkayga ku yaala habeenka arooska ah iyo ka hor ma waxaan u dhintay jacaylkii nagaad waa sheeko jacayl oo qalbigaaga dhaqaajinaysa waa tabintii nuur shariif shaacir waxaana qalinka u qaatay abwaan cabdullaahi cawad haddaba si aad uga bogato waayihii jacayl ee nagaad iyo dhibanahan uu caalamku ka helshay sabscribe saar janaalkeena aayaha nolosha tv lana soco habeen kasta oo axad ah qayb ka mid a sheekada